gifted and Safi. Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم. شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت لي وحرن سيديتين مي في عنتين أنا ويدي وناكسنهاي kusoo dhawaad video cusub. maanta khaanada oo raashinka aan ku istoor gareysto baan rabaa inaan kala hagaajiyo. khaanada raashinka bas baan dhigtaa, laakiin raashinkii baa intuu ka dhamaaday quraaradii aan ku shubin jiray baa quraaradii oo dhan aan hoos iska dhigay. kadib khaanadii markay faadi noqotay waxyaabo kaloo badan baa iska dul saartayba. videoga waa video dhiirigelin ah, waana video isku diyaarinta rabadaanta ah. aniga waxa way khaanadan bishii 2 mar hagaajiyaa, marna deep cleaning aan ku sameeyaa oo sida maanta u hagaajiyaa, marna si yar iska fudud baa u yar masaxa. maanta deep cleaning aan ku sameyn doonaa insha Allah. ugu horreyn waxaan sameeyay khaanadii wixii alaab saarnaayo dhan dhulkan kasoo dhigaysa ujeedeenba. kadib khaanadii saani kusoo baxday, saani uskagu tahay, weliba khaanada mid ugu hooseysa zaid uskagu ah maadaama xawaashidii waxyaabahaas aan dul saarto. hadda waxaan sameeyay shaambo iyo biyo aan isku soo daray. shaambada oo wax weey weelka lagu meedho, kadib caagadan baan ku soo shubay, kadibna meeshii aan ku wada buufiyay. haddana waxaan soo qaatay tissue khaanadii aan wada masaxaya oo wada tirtirayaa. khaanadan guriga iguma dhagsaneyn, aniga ayaa ku dhagsaday. waxaan ku soo iibsaday Amazon-ka, hadaa u baahan tihiin Amazon-ka ka helaysaan. waxa way raashinka dul dhigan kartaa, waxaad dul dhigan kartaa weelka quraarada oo kale. hadaa rabto weel iyo sharaxaadii waxa dul dhigan kartaa. adii jikada way soo saaraysaa khaanadan yarka ah. waa kaas soo jeedaan waxa waaye khaanadii oo dhan waan wada masaxay, waan wada tirtiray. hadda quraaradihii iyo caagadihii iyo alaabtii raashinka aan ku shubanayay uu raashinku ka dhamaaday oo dhan iyo furarkoodii aan soo qaatay. halkan iyo sinkigan keenay. quraaradaha qaar wax yar oo raashin ku jiray laakiin waan ka shubay. hadda quraaradahan iyo furarkooda waxooda dhan waxa waaye aan wada nadiifinayaa amba aan wada dhaqayaa kolba saa u taqaanaan. kadibna waxaan halkan soo dhigtay tuwaal baa halkan ku soo fidiyay. kadibna quraaradihii aan ku furfurinayaa si ay u qalalaan. waa kana quraaradihii caagadihii furarkoodii waxoodii oo dhan waan soo wada meedhay. halkan aan kusoo wada furariyay 2 saacadood meelahaas aan sugaynaa inta ay quraaradahan iyo waxaan oo dhan ay iskood u qalalayaan. markay qalalaan kadib baa ku soo noqon doona insha Allah oo aan raashinka ku shuban doona. waa inaan sugnaa ilaa intay ka qalalayaan. waa kana waxa way quraaradihii way soo qalaleen. hadda waxaan ku shubanayaa waxa way raashinkii. quraarada ugu horeysa waxaan ku shubtay wheat bagas amba konfalagaska nooca oo qamadiga laga sameeyay. waxa way subaxdan ay iga qabato amba aan caajisanahay baan ku quraacdaa. marka ilaa inta rabadaanta la gaarin baa isticmaal doona insha Allah oo aan ku quraacan doona. quraaradan hadda waxaan ku shubtay waxa way salbuko, tan waxaan ku shubtay waxa way shuuro amba soor kulba saa u taqaanaan. quraaradahan way kala waaweyn yihiin sababta cuntooyinka aan ugu isticmaalka badanahay sida bariiska, baastada, makaroonaha waxa way quraaradoodu waa waaweyn yihiin. waxaan ku shubtaa kiilo iyo badh. quraaradaha dhexdhexaadka waa cuntooyinkan usbuuci dhowr mar isticmaalo. quraaradaha yaryarna waxaan ku shubtaa waa cuntooyinkan usbuuci 1 mar amba 2 mar oo kaliya aan ka isticmaalayo. hadda quraaradan oo kale waxaan ku shubtay saloolka axada bas baan isticmaalaa. quraaradiisa quraarada yar weeyaan. hadda kan oo kale waa makarooni, caagidan baan ku soo shubtay kiilo iyo bar waxay qaadaa makaroona ah. bariiska oo kale kiilo iyo bar baan ku soo shubay imika quraaradan. makaroonihii bariiska waxaa isticmaalayaa maalin walba. waa isticmaalaa waa cuntada oo daruuriga maalin walba la isticmaalo. waxa waaye quraaradoodu way ka waaweyn yihiin. hadda quraarada waxaan ku soo shubay waxa waaye loosaskii. waxaan ku soo shubay looska la dhaho almond, cashew, pistachio, walnut iyo sabiib. loosaska aad iyo aad buu ugu fiican yihiin caafimaadka. ani gurigeyga lagama waayo. waxa waaye hadda iscaateynisin xoog bay ku anfacayaan. haddaadan iscaateynin oo naftaada ka fikiraysidna loosaska iska soo dhigo nus saac waxaas ka dhigan kartiin.
haddana halkan waxaan ku shubanayaa xawaashidii waaye. waxaan ku shubtay 3 nooc oo xawaashi ah, waa filfil, dhagayare, hayl. waan isku walaaqay kadibna qorofal baan ku shubtay. xawaashidan waa xawaashi original ah, marka xitaa soo iibsanayo lacag badan baa kasoo bixiya, udgoonkooda ma malaysan kartaan. haddana quraarada waxaan ku shubanayaa waxaa waaye xawaashka aan mar walba cuntada ku darsado oo la dhaho Arabian Mandi. 2 kartoon oo yaryar oo Arabian Mandi aan ku shubtay. kartoonkan ku jira Arabian Mandi lacala hadda u baahan tihiin, hadda cuntada si kaligiis ku darsatid kaal iska arag kaaga dhiga udgoon. waa kana quraaradihii waan kusoo wada shubtay raashinkii, saan bay diyaar iigu wada yihiin. ani raashinka marka quraaradaha ku shubto ma jeceli inay soo haraan baco oo wax yar oo raashin ay ku soo hareen. soo waxaan sameeyaa haddii oo raashinku 1 kiilo yahay, waxaan ku shubaa quraarad kiilo qaadaysa. hadduu nus kiilo yahayna quraarad nus kiilo qaadayso. waa ma jeceli bacaha wax yar oo raashin ay ku soo haraan, ma dhow tolana waa inaan haddana khaanad kale ku rido, wax waaye mashruucooda badan. soo waa kaas ani familkeyga waa iskeer yahay marka quraaradaha isticmaalana waa kuwaan yaryara. soo waa kaas hadee quraaradihiisa san kusoo wada diyaarsaday. soo hadda quraaradihii aan raashinka kusoo shubtay baan soo qaadayaa, waxaan soo duldhigayaa kabadhkan. quraarada waxaan kusoo shubtay waa daqiiq amba burka cad, quraaradana bariis ba igu jira, tanna salbuukan kusoo shubtay. caagaan yarka ana waxaan kusoo shubtay waxaa waaye boorash. quraaradaha raashinka aan ku shubtay waxay ii ooli doonaan 2 usbuuc amba 15 cisho. 15 beri kadib markay dhamaadaan raashin cusub baan ku shuban doonaa insha Allah. soo hadda khaanadii labaad baa alaabta dhigdhigaya. waxaan soo dhigay waa sonkor, waxaan soo dhigay kale wheat bagas, waxaan soo dhigay soor amba shuuro kulba saa u taqaanaan. quraarada waxaa igu jira waa looses, kadibna waxaan soo dhigay qumbe amba kakanad iyo salool amba daango kulba saa u taqaanaan. soo haddana khaanadii saddexaad alaabta dhigdhiganayna. waxaan soo dhigtay xawaashiyaasha burburan isku soo dardaray. shaax madow baa quraarada igu jirta, tan kale Arabian Mandi igu jiro amba xawaashka Arabian Mandi la dhaho. quraaradaasna waxaa igu jirta chai seed. haddana xawaashiyaashii kale aan soo qaatay, waxaan rabaa inaan korka ka masaxo. soo tissue yar oo qoyan baan soo qaatay. tissue-ga yar oo qoyan baan korka kaga wada masaxaya, aan kaga wada tirtirayaa. waa xawaashidii, waa baking powder, waa milix iyo koofe, intaasay ka kooban yihiin. soo intii oo dhan basa ujeedaan korkii aan ka wada masaxay, lacala haddii korka ay wax kaga daadaateen oo kale saa darteeda u masaxaya. soo markii aan wada masaxay kadib alaabtii aan soo qaaday, kadibna khaanadiiba ayagana saa ujeedaa u dhigdhigayaa. haddii uu videoga idin qanciyo fadlan like-ta ha ka iloobina, waxa waaye commentina iga soo dhiibo, asxaabtaadana la share garee, channelkana subscribe saar insha Allah. soo khaanada dhinacaasha waxaan dhigay waa green tea iyo yeast iyo hayl tuman. haylka tuman waxaan ku darsadaa badanka keega iyo waxyaabahaas. soo finally waa kana khaanadii saa ujeedaan quruxda badan leh kusoo baxday. before-keedii waa ogeydeen si isugu dhex yaacsanayd, haddana waa ujeedaan sidaan qurux uga dhigay oo usoo hagaajiyey. oo waa la dareemaa inay gabadhi ku fara yareysatay khaanadan oo waqti gelisay. soo dee aniga isku diyaarinta rabadaantan ku jira waaba ii jeedaani. idinka xaggee rabadaantii idin la maraysaa ma isku diyaariseen mise weli way idinka jiiftaa? dee waa kaasa. I hope videoga inuu idin qanciyey. gabagabadii videogan joognaa. intaan videoga ku xiga ka kulmayno waxaa idinkaga tegayaa maca salaama.